Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba aad joogtaan, ku soo dhowaada kanaalka Hikaachi. Maanta waxaan qaadanaynaa cashir English. Maalintii dhaweetay ee ugu dambeysay cashirkii aan qaadanay wuxuu ahaa family ama qoys. Marka cashirkaas si aan tusaalayaashiisa u qaadanno, maadaama aan maanta ku ballansanay inaan tusaalayaashiisa qaadanno cashirkaas aan ereyada iyo magacyada ka siiyey, waxaan ka soo hormariyay cashir la yidhaahdo personal pronouns ama magacyaalada shakhsiyaadka. Casharkani wuxuu kaa caawinayaa inaad fahantid casharka soo socda ee ah tusaalayaashii qoyska. Sidaa daraaddeed maanta casharkeena waa muhiim, noloshaadoo dhanna muhiim buu u ahaan doonaa haddii ay beedmo. Englishka intaad baranaysid ee aad ku jirtid geediga waxbarashada ee luqadda Ingiriiska, waxaa u baahan tahay inaad si fiican u taqaanid personal pronouns waxa la yidhahdo ama magacyaalada. Marka halkan waxaa ku qoran the 7 personal pronouns, toddobada magacyaal ee shakhsiyaadka loo isticmaalo. Waa shakhsiyaad loo leeyahay oo aan loo dhahayn personal pronouns ama pronouns kaliya waxaan loo oranay. Sababta ah toddobadan 6 ka mid ah waxaa loo isticmaalaa intooda ugu badan. Mar walba waxaa loo isticmaalaa marka qaarkood in mataqaanaa wax kale laga hadlaya maana. Inta badan waxaa loo isticmaalaa dadka. Sida daraaddeed waxaa la yiri personal pronouns. Mid ka mid ah inta badan waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ashyaada ah iyo xayawaanka. Alright. So casharkana waxaa la yiraahdaa there are 3 types of pronouns. Waxaa jira 3 nooc oo pronounada ah. Pronounadu ama pronounka ama magacyaalku 3 qayb waa ka badan yahay ama 3 qaybood waa ka badan yahay. Laakiinse maadaama ay 3dan qayb noqosayso, maanta 3dan qayb ayaan qaadanaa. Inta badanna 3dan qayb ayaa la isticmaalaa sababtoo ah waxyaalaha ama qaybaha kale ee magacyaaladu waxay ka tafiirmaan 3dan qayb inta badan. 3dan qayb laftigooda oo macnaha qaybaha laga dhigay iyaga laftigooda waa isla midkii oo isla macnaheed tusinayaan, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin shaqada ay qabanayaan iyo booska ay ku jiraan. Sidaa daraaddeed kan koowaad waxaa la yidhahdaa halkaan kugu soo qoray 3dooda si u kala horeeyaan fiiri. Kan koowaad waxaa la yidhahdaa subjective pronouns. Kan labaadna waxaa la yidhahdaa objective pronouns. Kan saddexaadna waxaa la yidhahdaa possessive pronouns. So subject waa maxay? Subjective pronouns waa magacyaalada ka gala weedha qaybta hore. Anigu waxaan baranayaa Ingiriiska. Haddaad tiraahdo anigu waa magacyaal wuxuu ka galaa weedha qaybta hore. Objective pronouns-kana waa magacyaalada weedha ka gala sidoo kale qaybta dambe. Kuwii hore waa subject, yani waxa weeye waa meesha ay ka bilaabato weedhu ayay inta badan galaan. Mar walba maahan. Marka qaarkood waxyaalaha haddii ilaahay marka luqadda si fiican u dhex gashaan waxaa ogaan doontaan wax badan oo ku saabsan pronounyada. Laakiinse maanta waxaa ogaataa inay mar walba ka galaan horey. Objective pronouns-kana inay mar walba ka galaan gadaal. Ingiriiska waxaa baranaya Cabdi. Yaan oran saa oran. Ingiriiska waxaa baranaya isaga. Tusaale ahaan waa saas oo kale macnaa markii la safro. Luqadaha inta badan isku qaab ma ahan. Okay? Laakiinse waa wax saas oo kale la macnaa oo tusaale ahaan kale. Qaybta saddexaad waxaa la yidhahdaa possessive pronouns. Possessive pronouns waa magacyaalada lahaanshaha tusiya. Waxaas hebel baa leh. Mataqaanaa Cabdi buuggiisii, Cali qalinkiisii, Caasho maradeedii, waxyaalo noocaas oo kale ah waxay tusinayaan lahaansho qofku wuxuu leeyahay ayaa baa lagu tusiyaa. Alright. Aan u guda galna marka qaybta koowaad ee la yiraahdo subjective pronouns. Subjective pronouns-ka sidaa markii hore soo sheegnay pronounyadu waa 7, waa 7 personal pronouns. Marka ka koowaad I waxaa la yidhahdaa aniga. I am a student. Tusaalayaasha waa qaadan doonaa. Hadda waxaan rabaa inaan dul maro kuwan. I waa aniga. We waa inaga. He waa isaga. She waa iyada. It waa baa loo isticmaalaa.
waa magacuyaal Soomaaliga waxa laga yaabaa in badan inaad ku aragto oo ina wax badan aragtay baa laga yaabaa ereygan laakiin saacada waa aqoon inuu magacuyaal marka qaar kood loo isticmaalo iyadana waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa it laakiin boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay inay waa ugu haboon tahay waana ku sababayn doona hadii eeba idma marka aad tusaalayaasha u guda galan they waa iyaga you waa adiga you man waxaan kula hadlayaa hadda adiga dhageysanaya adiga marka aniga oo I ah inaga oo we ah isaga oo he ah iyada oo she ah it oo waa ama iyada ah they oo iyaga ah iyo you oo adiga ah these are the 7 subjective pronouns kuwani waa 7 magacuyaal weedha qaybta hore ka gala alright markaan tusaalayaal ba u guda gali doonaa tusaalayaashu waxay leedahay examples of subjective pronouns tusaalayaal ka kooban subjective ama magacuyaalka weedha hore ka gala markii dhawto waxaan soo baranaa I inay tahay aniga okay waxaa la raaciyaa wax yiraahdo helping verb ama falcaawiye wax yiraahdo la raaciyaa marka amtaas inta badan way raacdaa I am anigu waxaan ahay way laakiin markii hore I maxay ahayd anigu bay ahayd waxaan ahay kuma jirin ma garad marka amta waxay soo kordhisaa xaalad ahaansho bay soo kordhisaa alright waa markii macnaha wax jooga laga hadlayo mar rabo waxaan ku soo mashquulo muhiimadan waxa weeye inaan fahanno magacuyaalka I waxaan uu jiricsan yahay hadii eeba idma markii aad ku celcelisid oo kuwan iyo qaabka isku raacana aad baratid hadii ilaahay waa ku fuusaanaya waa huwa boqolkiiba boqol adigana inaad si fiican u fahmi doontid hadii ilaahay marka kaliya adiga diirada waxa saartaa inaad fahanto marka koobaad I am a student aniga waxaan ahay arday I am anigu waxaan ahay student arday he waa tusaalaha labaad is baa raacda inta badan he she iyo it waxa raacda inta badan is baa raacda alright marka waxay ayadu sidoo kale tusaa xaalad ahaansho he is my father waa soo baranay waxay ahayd aabi wax xasuustaan baan filayaa mydaas ba hadda nagu soo korodhay sidoo kale he waa nagu soo korodhay laakiin mydan gadaal baa casharka qaybihiisa dambe ku imaanaysa laakiin hadda waxa diirada saadha he isagu waa aabahay ahaansho istaasna he is my father isagu waa aabahay she iyadu is waxay tahay my younger sister iyadu waa walaashayda yar younger sister waa soo baranay sidoo kale okay it is iyadu a cat waa bisad marka waa bisad iyaduna waa dhihi karnaa waa bisad waa dhihi karaa waa bisad waa dhihi karaa sidoo kalena iyadu waa bisad waa dhihi karnaa alright so you they qaybta hoose iyo we waxay qaataan r bay qaataan alright okay laakiinse gadaal damba ka baran doonaa waxa raaci doona iyo qaabka u raaci doonaan iyo sababtay u raaci doonaan iyo goortay raaci doonaan waxaasoo dhan gadaal ba uga tagi doonaa marka you are very clever student adigaan kula hadlaya hadda cashir ka dhageysanaya waxaa tahay arday xirfad macnaha xariif ah oo fahmad badan dhug badan dhageysi badan caqligiisu furan yahay markuu wax baranayo you are very clever student waxaa tahay arday aad iyo aad u xariifa very waxa weeye aad clever waa xariif studentina waa soo baranaya waa arday they are new teachers kuwani ama iyagu waa macallimo ama macallimiin cusub ama barayaal cusub new waa cusub teachersna waa macallimiin ama barayaal waxa u taqaan we inagu love waxaan jecelnahay Allah subhanahu wa ta'ala we love Allah ilahi waa jecelnahay subhanahu wa ta'ala masha Allah hadda waxaan qayb gali doonaa insha Allah maadaama aan soo baranay magacuyaalada sentence-ka qaybta hore ka gala waxaan sidoo kale baranaynaa magacuyaalada sentence-ka qaybta dambe ka gala ama weedha qaybta dambe ka gala
objective pronouns bariyada magacu yaala weedha gadaalka gala objective gadaalka gala waa gadaal gale subjective kuna waa hore gale okay me waxaan ku hoos qoray macnaheeda me I iyo me waa isku mid I iyo me waa isku mid labaduba waa aniga him iyo he na waa isku mid labaduba waa isaga her iyo she na waa isku mid labaduba waa iyada it waa way ama iyada labaduna waa isku mid it isma bedbedesho laakiin kuwan way isbedbedeleen walow ay macnaha isku mid ka yihiin you ayada laftigeeda isma bedelin adiga way you okay markii ay sentence-ka hore ka gasho iyo markii ay gadaal ka gashaba you baa loo qoraa sidoo kale it markii ay gadaal ka gasho iyo markii hore ka gashaba labadaba it baa loo qoraa marka saa ula soco they waxay isku bedeshay them oo labaduba waxa weeye iyaga weeye as waxay ka timid we oo labaduba inaga weeye sidaa daraadeed aan aragno tusaalayaal ayaga wata intaan xifdi intii hore soo xifdi intaan xifdi mid walbana sida ay iskula mid yihiin iskulana macnaha yihiin baro si fiican si aadan ugu baratid oo aadan u ilaawin alright so examples of objective pronouns tusaalayaasha magacuyaalada weedha qaybta dambe ka gala so my English teacher midka koowaad my English teacher gave this book to me qaybta aan gududka ka dhigay waa ku muhiim waa magacuyaalkii gadaalka galayay weedhuna waa tande my English teacher gave this book to me macallinkayga ingiriisku wuxuu buuggaa siiyey aniga gave waa siin weye waxay ka timid give waa baran doonaa sidoo kale falalku ay isku bedbedelaan teacherna waa soo baranay Englishna waa taqaanaa bookna waa garanaysaa book this book marka this waa maxay buugan waa buug noo dhow markii aanu hadalkaas lahayn okay tusaalaha labaad the donkey followed him daanyeerkii wuu raacay isagu daba socday daba galay wakaa followed wuu daba galay wuu raacay weye facebooka waxaa ku aragtaa follow me brother ila soco weye macnaa meeshaan intaa igu soo biidid saa ila soco wax walba aan soo dhigo la soco oo saa ii daba raac macnaa donkeyna waa daanyeer alright donkey waa dameer weye sorry war halkaa waa okay the donkey followed him dameerkii isaga ayuu dabagalay ama isaga ayuu raacay ama isaga ayuu la socday okay so waxa weeye Facebook waxa ku aragtaa in qofku ama dadku ay ku dhahaan please follow us guys nasoo macnaha follow gareeya maxaa laga wadaa waxa weeye war wax walba aan soo dhiga la soco weeye saa ii daba soco weeye right that's quite funny alright so tusaalaha saddexaad bring that toothbrush to her mataqaana adaygaas okeen iyada marka bring waa okeenid thatna waa wax halkaas oo kale kaaga muuqdo oo aad tilmaamaysid toothbrush waa aday to her na waa iyada okeen weeye they all failed salaha afraad they all failed to stand on it waxay kurtigood ku guuldareysteen inay u dulqaataan way u dulqaadan kari waayeen wey they all failed kurtigood waxa ay ku guuldareysteen failed way ku guuldareysteen wey hadda maahana mar hore ku guuldareysteen wey to stand on it inay u dulqaataan okay tusaalaha shanaad my mother bought some new clothes for all of us guys maanta my mother hooyaday bought some new clothes waxay soo gaday xoogaa dharo cusub annagoo dhan bay noo soo qaaday for all of us bay noo soo gaday marka my mother waa hooyaday bought waxay soo gaday weye some xoogaa new cusub clothes dhar xoogaa cusub macnaha xoogaa dharo cusub weye for all of us kurtigan for all of us right so tusaalaha lixaad he is hiding something from you waxbuu kaa qarinaya muxuu talo ka qarinaya maqan he isagu is hiding wuxuu qarinayaa something waxuun from you adigu kaa qarinaya adiga ardaygaagu wuxuu rabaa inuu wax kaa qariyo ka war kaadin just okay all of them tusaalaha toddobaad all of them greeted her way salaameen kurtigood way salaameen
for her achievement inta aan bracketka galiyay muhiim ma ahan laakiinse weesha u soconay her sentence ama word markaan iraahno kurtigood way salaameen way dhammaystiran tahay laakiinse intaan siyaabo kala loogu daraayo markii Englishka dhex gashaan ayaad si fiican u baran doontaan haddii eeba in gaarsiiyo dilahay inshallah. So all of them greeted her. Kurtigood way salaameen. Greeted her. Greeted was salaamed. All of them were kulligood. Sidoo kale hadda waxaan soo barnay all of us. Kulligeen. Maxaa isbedelay? Demtan iyo aastaasa iskala bedelay. Oo marka all of you kurtigeen haddaad tiraahdo kuwa alla hadlisid. All of them kuwa maqan oo ka hadlisid waa kurtigood. Right. Okay, possessive pronouns qaybta saddexaad baan u soo guda galnay. Possessive pronouns waxaan niri waa magacyaalada tusiyo lahaanshaha wax aad leedahay. Waxaan waa waxaygii, waxaan waa waxaygii, waxaan waa waxeedii, waxaan waa wixiisii, waxaan waa waxoodii, waxaan waa waxaaga. Waa waxyaalo noocaas oo kale tusiya. Alright, buugayga, qalinkayga, dharkayga, alright, gurigayga, wiilkayga, gabadhayda, waxyaalo noocaas kale. Aabahayga waxyaalahaas oo kale baliyada lahaanshaha tusinayaan qofku inuu xiriirka uu la leeyahay lahaanshaha aad tusinayaan. Alright, so my waa waxayga, his waa wixiisa, her waa waxeeda, it is waa waxeeda iyada laftigeeda. Okay, your waa waxaaga, their waa waxooda, our waa waxeena. Amar labaad ku celiyo, my waa waxayga, his waa wixiisa, her waa waxeeda, it is waa waxeeda sidoo kale. Waxay ku kala duwan yihiin meesha loo isticmaalo insha Allah waa baran doontaa. Your waa waxaaga, their waa waxooda, our waa waxeena. Okay, aan tusaalayaasha aragnay examples of possessive pronouns. Tusaalayaal tusinaya magacyaalada lahaanshaha tusiya. This is my pen. This is my pen. Kani waa qalinkayga. This is kani. My pen waa qalinkayga. Kani waa qalinkayga. Marka mydaas aan gududka ka dhigo waxay tusinaysaa inaad qalinkan adigu leedahay. Okay, tusaalaha labaad. He lost his textbook. Buuggiisii buu dhimiyey. Yaa buugga dhimiyey. Yaa buugga horta lahaa isaga. Yaa tusinaya his. Maxaa buuggii ku dhacay? Wuu dhumay. Okay, marka buuggiisii buu iska dhimiyey. Wax kale just u ahaa. Alright, tusaalaha saddexaad. She looked like her older brother. Waxay u eg tahay walaalkeeda ka weyn oo way isku egayeen waa dad wada dhashayo aad isugu eg. Marka waxaa rabtaa inaad qof kale u sheegtay oo tiraahdo she looked like her older brother. Ma aragtid waxay u eg tahay walaalkeeda ka weyn. Waxyaalo noocaas kale. Tusaalaha afraad. The tiger licked its bow. Okay. Bow. The tiger licked its bow. Shabeelku tigerku waa shabeelkii. Lickedna wuu xoqasha wey. Okay, it is bow. Bow waxaa inta badan yiraahdaa cagaha xayawaanka cidiyaha laalaaban leh. Baa bow la yiraahdaa. Intooda mataqaana ay dhulka dhigaan baa bow la yiraahdaa. Iyo wax yar oo xogaa yar ka sarreysa. qayb yar oo inta lugta ay dhulka dhigaan iyo xogaa yar in yar oo macnaha qaybtaas sare uga qaadan. Intaas waxa la isku yiraahdaa bow. Marka eyga oo kala cagahaas leeyahay, bisad oo kala cagahaas leedahay. waxyaalo noocaas kale dad xayawaanka noocaas oo kale cidiyaha saa u soo laaban leh ayaa lugahaas oo kale leh. Alright, marka the tiger shabeelku licked wuxuu xoqday. Licked sidoo kale waxa yiraahdaa mataqaana leefid. Okay, it is bow. Actis. So is tusaalaha shanaad. Is this your lost textbook? Ninka hadda amaanta lahays oo lahayd buuggiisa iska dhimay baa waxa tiri baa buuggiisa inta u soo heshiiba rabtaa inaad tiraahdo buuggana aha kii ka dhumay rabtaa inaad tiraahdo is this your lost textbook? Kani ma buuggaagii iska dhumisay ba? Wakaas is this kani your lost textbook? Ma buuggaagii dhumay ba? Right. nin wanaagsan baa taa buuggiisa u celis ama gabar wanaagsan baa taa buuggii qofkii lahaa waa u celis masha Allah. Good job. Shaqo wanaagsan. They have finished their work. Shaqadooda way dhameeyeen. They have finished waa dhameed weeye. Alright, their work waa shaqadoodii. Anu marka hore waxaan ii sheegay in mataqaanaad possessive pronoun-ka ay tusaan lahaansho qofkan shaqadiisii. Their dadkan shaqadoodii. Their work shaqadoodii. Alright. Okay, tusaalaha toddobaad.
faith aaminaadu ama iimaanku is our most precious possession waa lahaanshaheena ugu qaalisan. Precious waa maxay? Precious waxa weeye qaali weeye, right? Mostna ugu qaalisan weeye, waa waxa ugu qaalisan. Awarna waa wix macnaha aan haysanay ugu qaalisan bay tusinaysaa. Okay, possessionna waxa weeye waa lahaansho, waxa ka timid possessive pronouns ba hadii lahayn soo maaha magacyada lahaanshaha tusiya. Halkan markay ahayd waxay ahayd tilmaan, waxay tilmaamaysaa ama sifo ama tilmaan ka bixinaysay nooca pronounka uu yahay. Laakiin halkan markay tahay waa magac oo waxa weeye lahaansho weeye. Alright, sida iyo waxyaalaha u kala duwan yahay magaca iyo tilmaanta iyo waxyaalahaas oo gadaal baan ka baran doonaa degdegnina. Waxaan rabaa inaan tusaalayaasha in la qaadsiiyo waxyaabaha halkan ku yaalana aan macnihiisa si gun ah u liqdaan. Alright, okay, casharka qaybtii ugu dambeysay baan soo gaarnaa. Apostrophe baan rabnaa inaan ku darno sababta casharka soo socda waxaan nini casharkani waa muhiim. Apostrophe sidoo kale casharka soo socda haddii ay beedmo way ku jiri doontaa. Marka sidaa daraaddeed haddaa maanta fahantaan waxa ay tarto iyo meesha ay mataqaanaa weedha ka gasho iyo qaabka loo qoro waxaas haddaa fahantaan hadhow casharka dambe markaa baranaysa si fiican baa waxaa doontaan u dhihi doontaa idinkoo apostrophe isticmaalaya. Apostrophe calaamadaas madowga ah, apostrophe calaamadaas halgeeda. Okay, tusaalaha koowaad buu firi wax marta maxay tustaa horta intaan tusaale ku gelin. Apostrophe waxay tustaa sidoo kale lahaansho. Okay, laakiin waxay ku tustaa qaab yar. Meesha aan ka dhihi lahaa this is my pen man ka dhina ama my pen qalinkayga meesha ka dhihi lahaa waxaan dhahayaa intaan magacayga sheego baan apostrophe ku daraya kadibna waxaan leeyahay qalinkiisii saasaan ba ku iri. Alright, ama gabadhii baan intaan magaceeda soo qabto apostrophe ku daran leedahay diraceedii maan leeyahay masarkeedii maan leeyahay haddaan doono. Alright, tusaalaha koowaad bal fiirsha. Hikaadshish Facebook page-ka hikaadshe bay macnaha ka macno tahay ama hikaadshe. Tusaalaha labaad, hikaadshish YouTube channel kanaalka YouTube-ka ee hikaadshe leeyahay. Fiiri apostrophe-ka meesha kaga jiro waxay kaga jidhaa xarafkii markaa dhameeyay qaybtiisa ugu dambaysa baa intaan apostrophe kaliya s ka dambeysiyay. Apostrophe iyo s-tana waa isla socdaan inta badan waxa ayna tusiyaan lahaansho. Hikaadsha channelkan iskale YouTube-ka, Facebook-gana waxa iskale hikaadsha. Muxuu ku soo gudbiyaa waxyaabaha aqoonta buu ku soo gudbiyaa ee dadka Soomaaliyeed waxtarka u leh. Alright, waxaan rajeynayaa inay dadkayguna ka faa'iidi doonaan sidoo kalena caawin doonaan YouTube-ka iyo page-ka si fiican ay usoo follow gareeyaan haddana ka qayb qaadan doonaan kana faa'iideysan doonaan haddii ay beedmo. Alright, tusaalaha saddexaad, student's book buuggii ardayga weeye. Buuggii ardayga marka buugaya iskale ardayga iskale. Mother's husband hooyo xaaskeedii, hooyo ninkeedii. Mother's husband, mother waa soo maray, husband labaduba waa soo baran. Right, so mother's husband hooyo ninkeedii. Right, tusaalaha shanaad, father's friend aabe saaxiibkiis. Aabe father waa soo baranay laakiin markii father's la yiraahdo aabe wuxuu leeyahay baan rabnaa inaan sheegno. Marka aabe saaxiibkiis baan rabnaa father's friend, mother's husband hooyo ninkeedii. Alright, casharku maanta intaasuu ku egyahay. war aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Fadlan haddii halkan soo gaartay casharkana aa u aragtay mid waxtar ku leh, fadlan ha ka bakhaylin inaa ehelka iyo asxaabta intii aa wanaag la jeceshay. waa ku ogaa inaad dadka wanaag la jeceshay Soomaaliya oo dhan saa anaguba ula jecelnahay inaan la wadaagi doontid. sidoo kale YouTube-ka aa subscribe ku qaban doontid sababtoo lacag kaama galda brother sister. Alright, sidoo kale like inaad saari doonto sababtoo casharka waxba ku taray. waa inaa aad samaysaa macnaha dee wax soo celisaa, ha noqon sida weel xaggana ka daloola xaggana ka daloola. At least waxa ugu yara ayna ka rajaynayna waxa weeye casharka inaad qabataan sababtoo waxyaalahan like-ta iyo share-ta iyo comment waa waxyaalo iska imaanaya oo hubaashi dadku markay meesha imaadaan oo ka helaan casharka iyo ama YouTube-ka ama channel-ka iyo waxtarkiisa markay arkaan hubaal waan hubaa inay mataqaanaa inta kusoo biiraan ay like-ta aanan oran ay ku boogi doonaan. laakiinse maanta maadaama aan bilownahay si dad badan ay u arkaan yacni like-ta sar
adigana waxbay ku taraysaa adoo u niyeysanaya khayr wax walba khayr u niyeysa xataa Englishka abrans hataa u niyeystay inaad wax ugu tiri doontid dalkaaga dadkaaga naftaada diintaada haddaad aaminsan tahay haddaad macnaha aad niyadda saa gashatid ajar baa ku helaysaa maalin walba war ma ogta ajarka horta inuu wax iska fudud yahay oo haddiiba la helo innaga aqoon dariiqyada iyo waddooyinka loo maray ee fudfududa fadlan ha ilaawa niyadda wax walba niyad wanaagsan aad ku ladhid niyadda dee haddaad tiraahdo qof baan dilayaa niyad wanaagsan taas horta galmaa brothers sisters alright taas waxa weeye naga wareejiya okay saa cashirka intaas kusoo gabagabanaya haddii eeba idmo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa cashirka ku xiga haddii eeba idmo inaan nabad iyo naruuro iyo barwaaqa iyo baraari ah ku gaari doontaan isku soo noqod wanaagsan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maalintu haynii wacnaato habeenku haynii wacnaado barwaaq iyo